inay guryihii isku booqdeen oo isugu tageenoo xaafadihii bay isugu tegayaan wixii loo diiday bay samaynayaan meheradihii baa laga yaabaa inay yidhaahdaan waxa weeye hoos baanu kaga jirnaaye soo galo ay meesha isugu tagaan oo isugu yimaadaan dalkeenna sidaas oo kaleetaa loo kala maarayn laayahay waxaa loo baahan yahay marka war wixii talo oo layna alxamdu lilah wathanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu alay wasalam walaalahayga qiimaha badan waxa aan rabaa inaan iftiimiyo arrin yar oo maalmahan aan dareemayey waxaynu wada ogsoonnahay in dunidu maanta ay la ildaran tahay aadna uga sheeganayso xanuunka corona waxaa in badan dadkeenna marka soomaalida ah laga sheeganayaa dhigo adayg iyo inay tacliimaadkii iyo talooyinkii la siinayay qaadan la-yihiin dal iyo dibadba oo laga yaabo taasina inay sabab u noqoto in si xoogan xanuunku uu u saameeyo in badan oo ka mid ah qurbo joogtoodii iyo in ka mid ah kuwii dalka joogayba ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuusan gaarsiin xanuunkan oo usan si xanuunka xawliga u socda uusan gaarsiin dalkeenna waxaan ilaahay ka rajaynayaa in dadkeenna dhiban ee dalka jooga ee dhibaatooyinka isbiirsaday la ildaran uusan xanuunkanna ugu darin waxaa dhici karta walaalayaal marka in badan oo dadkeenna ka mid a maadaama aynu muslimiin nahay inay macnaha yidhaahdaan war annagu ilaahay baanu tala saarsanaynaa waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh ilaahay qofkii tala saarsadana waa ku filan yahay inay sidaa ku qowlaan oo qaabka u hadlaan baa dhici karto oo halkaas ay noqoto in fahan ku qalloocdo waxaan rabaa marka inaan iftiimiyo walaalayaal tawakulku wuxuu leeyahay labo qodob buu leeyahay ka unkan maaba wuxuu leeyahay labo cunsur oo tawakul isaga yimaado tawakulka dhabta ah waa midka uu qofku rabbi si dhaba ugu tala saarsado ictimaad qalbi cala allah uu la yimaado asbaabtana uu la yimaado labadaa haddii laga waayo tawakul maaha haddii labadaa mid ka mida laga waayona tawakul noqon mayahe khaanad kale uu gelaya haddii rabbi inaad yani u hogato ood isu dhul dhigto oo aada isaga jala jalaaluhu ictimaad dhammaystiran rabbi u tala saarsan weydidna waxay noqonaysaa inaad isla weynaatay oo aada asbaabta ku kadsoontay haddii asbaabtii aada inkirto oo tiraahdid rabbi baan u tala dhiibanayaa laakiin wax sababa la iman mayona waxay noqonaysaa iyaduna tawaakul ma noqonayso tawakul waxaa loo baahan yahay marka labadaba in la dhammaystirto aahaarta ayaana sidaas ina baraysaho nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxa uu leeyahay low tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulih haddaad rabbi si dhaba u tala saarsan lahaydeen la rasaqakum kamaa yarsuqu طayr wuxuu idiin arsaaqi lahaa sida uu haadda u quudiyo shimbirta sida loo arsaaqo baa si la mid ah laydiin arsaaqi lahaa haddaad rabbi si dhaba u tala saarsan lahaydeen oo rabbi si dhaba in loo tala saarsado shimbirtu maxay ku mutaysatay ilaahayna waa isu dhiibtay kadibna asbaabtii bay la timi oo taqduu khimaasan wa taruuxu bitaanan aroortiibay iyadoo bog laalan oo gaajaysan ka lahdaa fiidkiina waxay soo noqotaa iyadoo soo dheragtay oo risqiga ilaahay soo heshay waxaa loo baahan yahay marka in sababtii lala yimaado nebiga sala allahu alay wasalam ayaa nin u yimi markaasuu wuxuu yihi rasuulka ilaahayow acqilu naaqatii wa atawakal am utliquhaa wa atawakal aw kamaa qaala macnaha sidii wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow ma tala saarsadaa ilaahay oo hashayda ma dabraa mase dabarkan ka furaa iyo xarigoo waa sii daayaa oo rabbi baan u daayaa wuxuu yidhi dabar oo sababtii la imow macnaha rabbina tala saarso tala saarsashada rabbi marka waxa weeye culimmadu markay qeexayaan xitaa oo tacriif ahaan ay qeexayaan waxay yidhaahdaan tawakulku waxa weeye ictimaadu lqalbi cala allah inuu qalbiga qofku rabbi u hogto oo uu ictimaadahoo tala saarsado fii xusuuli maa yanfacu lcabda fii diinihi wa dunyaah sidii uu u heli lahaa qofku wixii anfacayay isaga diintiisa iyo adduunkiisaba
wadafci maa yaduruhu fii diinihi wa dunyaahu maca alأkhdi biاlasbaab maca asacyi wاlأkhdi biاlasbaab inaad rabbi tala saarsato oo aada u tala saarsato wixii adduun iyo aakhiraba wax ku taraya sidii aada ku heli lahayd, wixii adduun iyo aakhiro ku dhibaya sidaad uga fogaan lahayd inaad rabbi u tala saarsato, asbaabtana aad la timaadid baa tawakul la yidhaahdaa. maryam ayaa waxaa la lahaa iyada oo umulah wahuzii ilayki bijidci nakhlati tusaaqit calayki rutaban janiya, waxaa la leeyahay geedka timirta ah jiriddiisa rux. haweeney umulahi jirid timreed miyay ruxi karaysaa? maya, ma ruxi karto. laakiin waxaa laga wadaa sababta la imow, annaga ayaa dhammaystirka lahaanayna, timirna kuu soo daadinayna. waxaa loo baahan yahay marka inaynu asbaabtii la nimaadno. asbaabta waxaa ka mid ah in talooyinka layna siinayo aynu qaadano, in wixii markaa la yihi ka fogaada aynu ka fogaano, in daryeelka nadaafadda iyo caafimaadka aynu ilaalino. talooyinka layna siinayo inaynu qaadanaa waxay ka mid tahay asbaabtii la rabay qofka mutawakilka ah oo ilaahay tala saarsanaya inuu la yimaado. marka aada asbaabtii la timaadid, rabbina aada tala saarsatid ood macnaha qalbigaaga u hojisid, markaasaad waxaad tahay mutawakil. waxaynu u baahannahay marka inaynu sidaa u fahannaho aynan isdhigan oo aan la odhan waxa weeye war annagu ilaahay baanu tala saarsanaynaayo meel walba oo dhibi ka iman karto aynan isku tuurine. war meelaha la yidhi imaantiga iyo yareeya, waxaad arkaysaa soomaalidii qurbaha joogtay markii la yidhi yaan laysu iman oo ha la kala fogaado, social distance ha la kala qaato, inay guryihii isku booqdeen oo isugu tageenoo xaafadihii bay isugu tegayaan, wixii loo diiday bay samaynayaan. meheradihii baa laga yaabaa inay yidhaahdaan waxa weeye hoos baanu kaga jirnaaye soo galo, ay meeshaa isugu tagaan oo isugu yimaadaan. dalkeenna sidaas oo kaleetaa loo kala maarayn layahay. waxaa loo baahan yahay marka war wixii talo oo layna siiyey oo asbaaba oo ilaahay uu sababin oo ka dhigi karo inaynu ku badbaadno aynu qaadanno. tawakulkay ka mid tahay. baaraka allahu fiikum wajazakum allah khayr. wasalaamu calaykum.